gurigii quruxda badnaa, reerkii quruxda badnaa, dhisnaa, isku faraxsanaa, caruurta quruxda badan isu hayay, shaqaysanayay, isku faraxsanaaya, isjeclaa, 9 sano isqabay, waxaa cagta la dulmartay naagtii deriska ahayd. Daawasho wanaagsan, waa mar kale iyo qiso cusub. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay. Kusoo dhawow Star Channel ayaan idin leeyahay. Haddaad nagu cusub tahay, subscribe-ka noo taabo. Haddaad nala sii joogtay, like iyo share-ka nagu qabo. Waad mahadsan tahay. Soo dhawaada dhammaantiin. Qisadani waxa ay ka dhacday dalka Mareykanka. Qisadani waxa ay ku dhacday hooyo magaceeda la yiraahdo Loris. Loris waxay ahayd hooyo shaqaysata, 2 cunug haysata iyo odaygeedii. Intaas 4 qof ayay ka qoys 4 qof ka kooban ayay ahaayeen. Loris waxa ay tiri maalin maalmaha ka mid ah baa waxaa dhacday gabadhaydii oo bankaxeeyay. Waxay tiri gabadhaydu waxay gadgadaysay tiri cookies ama buskudka yaryar ee caruuruhu cuncunaan ayay deriska ka gadgadaysay tiri. Waxay tiri Loris gabadhaydii baan qaaday gaarigayga kaxaystay, deriskan kusoo warwareegaynay tiri, marba albaabkayga qarqaraacaysay, cookie baan gadayaa ama buskud kolba saad u taqaano ayaan gadgadayaa, ma iga gadanaysaa? Marka waxay tiri sidaasay ku gadgadaysay. Waxay tiri albaabadii aan qarqaraacaynay albaab ka mid ah oo iyadu ay taqaanay caruur ay taqaano bay qarqaraacday, cookigii bay ka qaateen. Waxay tiri markay cookigii ka qaateen qof dumara baa soo baxday. Waxay igu tiri bay tiri hey soo gal, caruurtu intay cuncunayaan cookiska kaalay aan shaah isla cabnay. Waxay tiri ma comfortable maana ahayn oo maana yacni kuma faraxsanayn ama happy kuma ahayn inaan qoftan aan aqoonin aan gurigeeda galo. Haddana waan garan waayay tiri si aan u dhaho maya, waan ka xishooday bay tiri. Macnaha qof ilaah soo gal biliis kaalay shaah aan isla cabno soo gal, waan ka xishooday tiri. Gabadhaydii iyo caruurteeduna ay dad aad isu garanaya ay noqdeen. Waxay tiri anu caruurtan weligay ma arag, naagtana weligay hore oo ma arag. Marka waxay tiri laakiin gabadhaydu for some reason waa gabadh 16 jir ay ahayd bay tiri waqtiga. Marka caruurta marka ay banaanka u soo baxday bay malaha caruurtan yar banaanka iyo waxaas kula ciyaari jirtay. Marka waxay tiri gurigii anoon comfortable ku ahayn oo diiqa dareemaya iyo ciriiri baan soo galay, waan fadhiistay. Naagtii shaah bay noo soo karisay. Waxay tiri shaahii bay ii soo shubtay, waan fadhiistay. Gabadhaydina caruurtii bay iskala cayaartay tiri. Waxay tiri Loris naagtii markaan soo fadhiisanay waxay hadal iiga bilowday tiri, ma og tahay aniga iyo ninkaaga problems baana dhex yaalay. Waxay tiri waan yaabay. Ninkee? Ninkaaga waana kala tegi rabnaa. Waxay tiri waan yaabay, waan qosol gariir waxa la dhahaa igu dhacay dhahday. Yacni waan qoslaa, waan yaabay. Waxay tiri what are you talking about? Inay tiri maxaa ka hadlaysaa? Waxay dhahday you know waxa aan ka hadlayo, caruurtana 2 wiilna ninkaaga dhalay, don't you know that? Miyaadan ogeyn? Sidaasay igu tiri bay tiri. Markaasaa inay tiri may ma ogi, maad igu cayaaraysaa baan inay tiri anigoo sidii qof soo garaysan ah. Haddana magaciisi bay sheegaysaa, adigu miyaadan hiblaayo ahayn? Aniga magacaygii bay sheegaysaa bay dhahday Loris ahayn. Waxay tiri qoftan waxayba iila sheekaysanaysaa si qof aan anigu stoorigeeda oo dhan ogahay, anna waxbaba kama ogi bay tiri sheekadeeda. Waxay tiri naagtani markaa way ii sheekaysay. Waxay igu tiri bay tiri aniga iyo ninkaaga for a long time buu xiriir naga dhexeeyaa, 2 caruurta ana asagaa dhalay. Wuxuuna iigu sheekeeyey inaad adigu sheekadan og tahay, 2diinuna aydaan ahayn dad isku faraxsan oo ma aragtay isku faraxsan aydaan ahayn oo separate kala tihiin buu iigu sheekeeyey. Waan ogaa inaa isqabtiin laakiin separate aad kala tihiin oo yacni dad isla nool camal aydaan ahayn buu iigu sheekeeyey. wuxuuna kaluuna ii sheegay bay tiri in caruurtaadu marka ay high school ka baxdo aad isfuraysaan buu ii sheegay. Waxay tiri ani waan yaabanahay, adduunkii baaba igu soo rogmaday dhahda qoftan maxay ka hadlaysaa. Ani geesahaygaan fiirinayaa marba ma riyoonoyaa ma qoftan mayadaa riyooneysa, what's going on, waan yaabanahay dhah.
okay baan wax walba idhi bay dhahday. Waan kasoo tegayay tiri. Markaan kasoo tegay anoo shaaksan oo waxay dhahday maskaxdayda waxan ay qaadi la-dahan gurigayga imaaday. Waa habeen bay noqotay, waan iska seexday tiri, cidna lama hadlinay dhahday, waan iska seexday. Kaaga darane yani idiinsoo kala dhaafine isla maalintaas ay sheekadan soo maqlayso waa maalintii guurkeeda. Waxaa kasoo wareegatay 29 sano maalintii guurkeeda, exactly maalinta. Marka waaba wedding anniversary-geedii oo waa maalintii guurkeeda 19 sano kasoo wareegatay. Loris maalinka ay warkan soo maqlayso waxay dhahday aniga qalbiga i jabay, waan yacni riya camal ay waxan ila tahay. Qol gurigeygii baan tagay, waan iska seexday, qolka gabadheedaan seexday tiri. Ninkayga wuu imaaday, waxay dhahday waxba muuna ila hadlin, wuu iska seexday asagana. Maalintaas axaday ahayd ay tiri, maalintii isniinta ahayd buu igu yidhi bay tiri haye waan ogahay inaad wax walba soo ogaatay. Waayo waxay tiri naagtii kale ee u saaxiibka la ahaabaa wixii oo dhan usoo sheegtay. Waan ogahay inaad wax walba soo ogaatay. yaa baan ku dhahay tiri, wax walba waan soo ogaaday, waxaan la iisoo sheegay ma runbaa? Yeesu igu yidhi bay tiri waa run. Okay, waxay tiri waan iska aamusay, yacni waxba maana problem iyo waxba buuq wax aan ku furay ma laha. Waan iska joogay tiri, cabaaraan iska joogay. Waxay tiri waxaan sameeyey tiri markaa maskaxdaydii way u dulqaadan weysay, yacnihii ninkan inaan la sii noolaado. Go-aan waxaan ku gaaray tiri inaan ma aragtay aan iska furo, caruurtaydiina immediately aan u sheego. Isaga waxay tiri waqtigaas anigu waan shaqayn jiray, asaga laakiin ma uusan shaqayn jirin, unemployment buu ahaa. Waxay tiri caruurtaydii baan u sheegay inay caruurtaas walaal leeyihiin, aabahoodna uu waxaa sameeyey. Waayo waxay tiri gabadheeda 16 jir ay ahayd, wiilkaygana 12 jir u ahaa. Waan u sheegay tiri. Bas waxay tiri waan iskaga guuray, waana iska furay, caruurtaydii baan sidii ku korsaday. Laakiin waxay tiri waan aamini waayo, waan ma aragtay maskaxdaydii bay ka weynaatay. Naagtii kale oo ninkani labada caruurta u dhashay baa la weydiiyey, waxaa la yidhi ninkan maxaad ma aragtay aad ku choose garaysatay adigu oo caruurta iyo naagta leh? Aniga wuxuu igu yidhi bay tiri ninkan caruurtan iyo naagtanba waxaan la joogaya inta caruurtaydu high school ka baxayso. Waayo ma raba lacagta almoniga la dhahaa inaan bixiyo, child support inaan bixiyana ma rabo. Marka waa lacagta almoniga waxa waaye ninka marka uu naagta furo Mareykanka, yacni lacag almoni la dhahaa laga qaadi karaayo ah inuu naagta siiyo. Also waxaa laga qaadayaa child support. Marka waxay dhahday wuxuu igu yidhi bay tiri ma raba inaan waxaa bixiyo, laakiin anigu naagtan ma rabo, mana ma aragtay danaynayo, just caruurtaydan u joogaa meesha. Siday badanaa nimanka dhahan caruurtaydan u joogaa buu yidhi meesha. Wiilashana yana igu xanaaqine. Caruurtaydan u joogaa buu yidhi meesha uu ku dhihi jiray naagtii kale. Calaa kulli xaal naagtii kalena way ka tagtay, because markii hore oo mayna isku fiicnayn ay naagtan warka u sheegaysay. Naagtii sii weynaydna way ka tagtay. Halkaa ninkii waxaa uga soo hoyday meel cidlaa inuu kusoo dhaco. Kolley mid kaluu raadsan, waa Faarax Ileene. yaa marka gabadhii ahayd Loris way korsatay caruurteedii u waaweynaatay, iskuuladii bay u dhameeyeen, way shaqaysataa, waan shaqaystaa bay dhahday. Waxay dhahday yacni macnaha ninkaas maskaxdayda damage wuu u geystay, laakiin waxaa iiga sii xumaan lahaydee dhahday in oo ma aragtay waqti ay caruurtayda aad u yaryartahay ay naagtaasi ii sheegi lahayd. Intuu ila soo kori kari wuu ila soo koriyey, haddana iyagoo waaweyn baa la ii sheegay, kadibna ana waan iskaga tashaday tiri. Sidaasay kaga tagtay ninkeedii. Marka asxaabey qisadaas halkaasay ku dhammaatay. Waxaan idin leeyahay aan isku naxariisano si Ilaahay inoogu naxariisto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.